hay-adda Alfa Trust oo ah hay'ad samafal ayaa maanta magaalada Baydhabo waxay ka dhagax dhigtay ceelbiyood loo sameeynayo mid ka mid ah xeryaha dadka barakacay ay ku jiraan ee magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha hay'adda samafalka Daahir Cali Kulmiye agaasimaha hay'addaas Cabdisalaan Muumin oo wehelinayay taliyaha laanta socdaalka Koonfur Galbeed Cali Dhuuxa ayaa markii ay Baydhabo soo gaareen waxay booqdeen xeryaha barakacayaasha oo xilligan biilaan daran ay ka jirto iyagoona dhagax dhigay goob dhawaan ceelbiyood laga hirgelin doono sidoo kalena haweenka iyo caruurta barakacayaasha weydiiyay baahiyaha gaarka ay qabaan. Daahir Cali Kulmiye oo ah gudoomiyaha Alfa Trust ayaa sheegay in ceelkan dhawaan xarada 11 Janaayo laga qodi doono qarashka ku baxaya laga soo ururiyay dad muxsiniin oo ku nool dalka dibadiisa. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waxaan soo gaarnay Baydhabo. Maanta lacag aan soo dhiibtay waxaan rabnaa waajibkina saarnay ma halkan ayaan dhagax dhignay si dadkan walaalaha ayna muxsiniinta dhibaataysan dibka u la wadaagna. Maanta ceelbiyood ayaa halka ka furnay kaamkan 11 Janaayo waxa degan dad gaaray 500 waxa ku heerarsan 20 kaam tirada ay gaarayso 500 dad kira ka badan 10,000 qof ayaa degan halkan ceelka dadkan biyo uma qadna dad uma maqna dadku u maqan waa dadka muxsiniinta lacagaha ku soo sadaqeystay dadkan walaalahooda oo soo dhiiba Alfa Trust waa idin maad celinayna waxaan kaamkan meel aad u fog ay biyo ka doonaan dadkan waa wareysana maanta oo ku dhiban yihiin saacado badan ayaa loo socdaa biyaha la doonayo ma haystaan marka dad intaas gaaray tiradooda ma ahan inay biyo la'aan ama harraad aan uga daawano TV-ga inaan ka soo dhintaan. sidoo kale madaxa hay'addaas iyo agaasimaha Cabdisalaan Muumin ayaa booqday cisbitaalka magaalada Baydhabo iyagoona kormeeray qaybaha la jiifiyo caruurta jadeecada soo riditay iyo nafaqo darrada waxayna la kulmeen muddadii kormeerka ay ku jireen caruur in dhabeelisay jadeecada kuwa oo hay'adda Alfa Trust ay ka shaqeyn doonto in qalin loo sameeyo ku dhawaad 50 caruur ah. agaasimaha cisbitaalka Cabdifataax Xaashi Gaabo iyo gudoomiye Daahir ayaa sidan sheegay kormeerkooda kadib wafdi ka socda Alfa Trust oo u yimid isbitaalka gobolka Baay in ay booqdaan isla markaasna ay danaynayaan in isbitaalka gacan weyn ay ka geystaan iyagoo markaasi diiradooda ay tahay ama tawaalaysan oo ku nool deegaankan si wax loogu qaban lahaa gaar ahaan caruurta indha la'aanta ah oo u baahan indhaha in wax looga qabto haday noqon lahayd indhahooda in la daaweeyo ama haday noqon lahayd indhaha in loo fiiqo anaga waxaan rabnaa caruur aad u fara badan halkan aan indhaha uga fiiqno oo maanta diiwaan gelinta aan ka codsanay agaasimaha maamulkooda oo la wargelinayo inta gobol meelaha u dhow Baydhabo in laga keeno sanadkii hore xilligan waxa yeelay jadeecada waxay ka rid caruurta waa indhaha reasonka halkan oo nimid marka waxaan rabnaa inaan ka hortagno cudurka jadeecada iyo intii indhaha ma arkin oo jadeecada dib gaarsiisay si aan wax ugu qabano sanadkii hore xilligan waxa ku dhimatay muddo 10 daqiiqo gaaray 7 caruur gaarayo nafaqo darro iyo jadeecada ay soo darsoontay waa markii ugu horeysay mas'uuliyiinta hay'adda Alfa Trust ay soo gaareen magaalada Baydhabo balse howlaha samafal ee hay'addaas wado ayaan ahayn markii ugu horeysay oo ay ka fuliso magaalada Baydhabo. Muxdin Xusni, Universal TV, Baydhabo.